kulan saddex geesood oo maanta magaalada Hargeysa ku dhex maray guddida ka hortagga cudurka COVID-19 ee Somaliland wasaaradda waxbarashada iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyagu ku takhasusay sida ay bulshadu isugu gudbin karaan xanuunada faafa ayaa waxay guddidu ay soo saareen go'aamo ay ka mid ahaayeen in gebi ahaanba la joojiyo goobihii kala duwanaa iyo masaajidada ciidaha lagu tukado. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo isagu xubinna ka guddidaasi ayaa wuxuu warbaahinta u akhriyay bayaanka ay guddida ay soo saareen iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaadu ciidu tahay sunne waxaan gebi ahaanba la joojiyey salaada ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoomada xanuunka awgii dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan. mulkiilayaasha goobaha carruurta ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo carruurta oo playgroundska loo yaqaan. waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba laga bilaabo 1 duhurnimo maalinta ciidda ka horraysa. amarada aanu soo saaray maalinta ciidda waxaanu ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambaysa. labadaa maalmood ayay noqonayaan dhammaan labadaa maalmood isa socodka gobollada iyo ka guduhuba uu reeban yahay. dadkana waxaa lagu codsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagii uu ku jiro dalka si baaxad loogu jiro. marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada. waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiis. waxaa gebi ahaanba la mamnuucay in huteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Axmed Maxamed Toorno isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in fasaxoodii caadiga ah ay geli doonaan dugsiyada kala duwan ee dalka. inay dugsiyadu goobaha waxbarashada oo dhammi inay fasax gelayaan ilaa laga bilaabo maanta ilaa iyo 31 bisha 7 ee Julaay. waxaa kaloo oo wasaaradda waxbarashadu ay ogeedeen inay soo saartay in imtixaankii la qaadayo bisha Juun 27keeda. waxaan markaa u sheegayaa dhammaan ardayda marka laga bilaabo barbaarinta ilaa iyo jaamacadaha in si rasmiya loo xidhay iskuulladii oo fasaxii aynu qaadanay. hase ahaatee imtixaanadii maadaama la qaadayo dee ardaydu waa inay guryahooda wax ku akhriyaan oo aanay odhanin mar haddii fasaxii la galay dee waxba akhrin maayo. imtixaankii duruuftanaa keentay berigii hore imtixaanka iyo fasaxa waxaa soo horreyn jiray imtixaanka oo fasaxa ayaa xagga dambe laga qaadan jiray. laakiin iminka fasaxii baynu soo horreysiinay. duruuftaana keentay waxaynu nidhi si aanu ardayda wakhti uga lumin wakhtigan kolba iskuullada la xidhayo fasaxoodii ha qaataan. marka imtixaankii baa ka dib dhacay. imtixaanku markaa fasaxii baa soo horreeyey. imtixaankii baa xagga dambe laga qaadaya. ardayda markaa waxaa la farayaa ama aanu u sheegaynaa waalidiintana kula talinaynaa inay wax akhriskii iyo dadaalkii sameeyaan isla markaana uu socon doono barnaamijkii ka bara hawada ee TV-ga iyo laga sii dayn jiray iyo idaacadda. marka waa inaanu qofku su'aal inuu iska weydiiyaa laga yaabaa haddii fasaxii la yidhi uu bilaabmay haddana waa maxay imtixaanka xagga dambe laga qaadayaa. duruuftaa keentay. marka fasaxii iskuulladii way galeen laakiin ka bara hawadaa soconaysa 27 ayaa la qaadayaa. jaamacadahana iminkaanu wadnaa siday u qaadi doonaan inay online ku qaadayaan. Cabdiraxmaan Abdillaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa.